Faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya xiisad culus oo dagaal oo ka soo cusboonaatay deegaanada Waqdaariye iyo Shidan, taas oo markaasi saacadihii ugu dambeeyey la dareemay dhaqdhaqaaq culus oo ciidan kadib markii ciidamada beesha warsangeli ay heleen xog ku saabsan in maleeshiyaadkii dhinaca Somalilan ka soo jeeday ay isku diyaarinayaan duulaan ay ku qaadaan deegaanada Waqdaariye iyo Shidan. xogtii ugu dambeysay ee dhaqdhaqaaqa halkaasi ka soconaya ayaan kula wadaagi doonaa. Soo dhawow daawada, waxaan sidoo kale kula wadaagi doonaa maraakiib iyo sidoo kale diyaarado lagu arkay xeebaha deegaanada Waqdaariya. Maxay yihiin maraakiibta halkaasi lagu arkay? yaa iskale ujeeddada ay halkaasi u tageen ayaan kula wadaagi doonaa. Soo dhawow daawada, hadday tahay boqoshadaadii ugu horreysay Kaalmo Media, calaamada subscribe-ka noo taabo, muuqaalka like gare, aragtidaadana qaybta faallada ku dhiibo. waa hagaagga sidaad la socotaanba deegaanada Waqdaariye iyo Shidan muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa ka taagneed xiisad culus oo aad u xoogan, taasoo u dhexaysay ciidamada deegaanka ee beesha warsangeli iyo sidoo kale maleeshiyaad ka soo jeeda dhinaca maamulka Somalilan. maleeshiyaadka dhinaca maamulka Somalilan ka soo jeeda oo toddobaadyo ka hor weerar ku qaaday Waqdaariye iyo Shidan ayaa jab xoogan kala kulmay, kadibna dib uga laabtay duulaankii markaasi fashilmayna waxa ay isku dayayaan in mar kale duulaan kale ay ku qaadaan Waqdaariye iyo Shidan. sida xogaha ay nagu soo gaarayaan isla markaana xiriirro kala duwan oo aynu la samaynay dadka deegaanka ay noo xaqiijiyeen, maleeshiyaadkii dhinaca Somalilan ka soo jeeday ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay helayeen gurmad xoogan oo isugu jira ciidamada maamulka Somalilan oo dareeska beddeshay iyo sidoo kale maleeshiyaad kale oo dhinaca Somalilan gaar ahaan beesha Isaaq ka soo jeeda, waxaana ay isku diyaarinayaan isla markaana dhammaantood ay hadda isku urursanayaan meelo aan ka fogayn deegaanada Waqdaariye iyo Shidan, halkaasoo ay qorsheynayaan in ay duulaan kaga qaadaan deegaanada Waqdaariye iyo Shidan oo ay ku sugan yihiin ciidamada deegaanka ee beesha warsangeli. ciidamada beesha warsangeli oo ka hela iyagu markaasi ka war helay dhaqdhaqaaqa culus iyo sidoo kale diyaargarowga maleeshiyaadka dhinaca Somalilan ka soo jeeda, waxa ay dhankooda bilaabeen abaabul iyo diyaargarow aad u xoogan, iyada oo ciidamada hadda markaasi lagu soo warramayo beesha warsangeli in ay u baxeen halka markaasi laga soo sheegay in dhaqdhaqaaq uu ka socdo. waxaana la soo warinayaa in ciidamada beesha warsangeli ay feejignaan aad u sarreysa waqti xaadirkan ay ku jiraan, isla markaana difaacyadii ciidamadii ku jiray dhammaan lagu wargeliyey inay heegan buuxa ay markaasi galaan. haddaba xiisaddan ayaa ku soo aadaysa xilli habeenno ka hor deegaanka Yubbe uu ka dhacay iska horimaad u dhexeeya ciidamada maamulka Somalilan iyo maleeshiyaad taabacsan iyo sidoo kale dadka deegaanka, waxaana deegaanka Yubbe laga saaray maleeshiyaadkii dhinaca Somalilan taageersanaa iyo ciidankii la socday, waxaana Yubbe gacanta ku haya waqti xaadirkan ciidamada deegaanka ee beesha warsangeli. kadib xiisaddaas maanta waxaa la soo warinayaa in dhaqdhaqaaq culus iyo sidoo kale xiisad aad u xoogan laga dareemaya deegaanada Waqdaariye iyo Shidan, taasoo u muuqata in ciidamada beesha warsangeli ay heleen xogo sirdoon oo markaasi lagu kalsoonaan kara, taasoo muujinaysa in weerar uu ku soo wajahan yahay, isla markaana waxa ay samaynayaan diyaargarow iyo sidoo kale heegankii ugu sarreeyey. hubka iyo sidoo kale ciidamadii ugu badnaa ayaa difaacyada hore laysugu geeyey, waxaana gebi ahaanba markaasi ciidamada ay xireen kontaroolada soo gala magaalooyinka Shidan iyo sidoo kale Waqdaariye si markaasi ay uga hortagaan in lagu soo dhex dhunto gaadiidka markaasi soo gelaya magaalooyinka Shidan iyo Waqdaariye. ciidamada beesha warsangeli waxaa hadda lagu soo warramayaa in ay markaasi heegan buuxa oo dhammaystiran ay galeen, isla markaana dhinaca Somalilan maleeshiyaadkii ka soo jeeday xogahana soo gaaraya waxay tilmaamayaan in gurmad kala duwan uu kaga imaanayo magaalada Ceerigaabo, isla markaana uu soo gaarayo halkii ay ku sugnaayeen maleeshiyaadkii maalmo ka hor ama toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay lagu jibiyey dagaaladii ka dhacay Waqdaariye iyo Shidan, oo iyagu markaasi mar kale qorsheynaya inay weerar ku qaadaan ciidamada beesha warsangeli. maleeshiyaadka ka soo jeeda dhinaca Somalilan oo toddobaadyadii lasoo dhaafay hub iyo sidoo kale ciidan xoogganba markaasi oo gurmad ah ugu yimid, waxa ay hadda isku diyaarinayaan guluf ballaaran oo ay kula wareegaan deegaanada Waqdaariye iyo Shidan. laakiin beesha warsangeli ayaa iyadu markaasi goor hore waxa ay Waqdaariye iyo Shidan geysay ciidamadii ugu badnaa iyo sidoo kale hubkii ugu tirada badnaa oo ay doonayso in deegaanadeeda markaasi ay ku difaacato. saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale waxgaradka beesha warsangeli oo hadda kulan xasaasi ah uga socdo sida xogaha ay nagu soo gaarayaan degmada Badhan, waxa ay markaasi isla qaateen in sida ugu dhaqsiyaha badan markaasi looga diyaargaroobo gulufka suuragalka ah in lagu soo qaado deegaanada Waqdaariye iyo Shidan. waxaa la soo warinayaa
in Suldaan Siciid oo kulanka markaasi isaga goobjoog aanan ahayn uu qadka telefoonka kaga qayb qaatay isla markaana uu amar ku siiyey saraakiisha iyo ciidamada beesha warsangeli ee shidan iyo waqdariyo ku sugan haddii markaasi weerar lagu soo qaado inay si buuxda ugu jawaabaan isla markaana ay tallaabo adag ay qaadaan. warbixin aynu halkan kula wadaagnay maalinimadii shalay ahayd waxaa markaasi mid ka mid ah salaadiinta beesha warsangeli oo aynu waraysi la yeelanay uu tilmaamay in haddii lagu soo duulo ay iyaguna jawaab cad bixin doonaan oo weerar kasta oo lagu soo qaado la doonaya in deegaanadooda lagula wareego ay iyagu ka jawaabi doonaan deegaana aysan waqti xaadirkan muran ka taagneenna muran ay gelin doonaan oo ay la wareegi doonaan. waxaana uu si cad markaasi ugu digay maleeshiyaadka dhinaca Somaliland ka soo jeeda haddii aadna soo weerartaan waxaan idin siin doonaa cashar adag deegaanadiina ayaana markaasi lagu gorgortami doonaa ayuu yidhi. hanjabaadaas ayaa waxa ay markaasi u muuqataa in maleeshiyaadkii dhinaca Somaliland ka soo jeeday iyaga oo ka jawaabaya ay qorsheynayaan weerar ay ku qaadaan deegaanada waqdariye iyo shidan si ay markaasi ula wareegaan. xiisad kacsanaha ayaa halkaasi laga dareemaya waqti xaadirkan guud ahaan wixii ka soo kordha wararkeenna dambe ayaan kugula wadaagi doonaa si aad u noqoto daawadaha ugu horreeya ee mar kasta hela xogaha iyo warbixinada aynu halkan ku baahino. muuqaalkan like saar, aragtidaada qaybta faallada ee kommentiga ku dhiibo sida aad markaasi u aragto. beesha warsangeli maxaa la gudboon waqti xaadirkan? ma waxay sugaysaa inta weerar lagu soo qaadayo mise waxaa u furan beesha warsangeli in iyadu ay weerar qaado oo ay ka jawaabto markaasi qorshayaasha iyo weerarada loo qorsheynaya in lagu soo qaado oo lagu waxyeeleeyo? aragtidaada qaybta faallada nagula wadaag. markana isla waqdariya waxaa la soo warinayaa in xeebaha deegaanka waqdariya lagu arkay maraakiib dagaal oo aan la garanaynin markaasi ilaa hadda cidda markaasi iska leh. xogo kala duwan oo dadka deegaanka ay nala wadaageen waxa ay tilmaamayaan in maraakiibtaasi ay iska leeyihiin qolyihii markaasi dhowaan maamulka Somaliland aqoonsiga siiyey ee koofiyad yarta, waxaana la arkayaa ayaa layidhi calanka ee markaasi ka lulanaya maraakiibtaas qaybtood inuu yahay calanka qolyaha dhowaan Somaliland ay la xiratay oo xiriirka markaasi ay la samaysay. ilaa hadda markaasi faahfaahin rasmi ah lagama hayo in maraakiibtan ay yihiin kuwa dagaal iyo sidoo kale in markaasi ay yihiin maraakiib kalluumaysi oo khayraadka iyo sidoo kale kalluunka xeebaha waqdariye markaasi boobaya oo daldalanaya. maadaama aysan jirin guud ahaan xeebaha Soomaaliya ciidan badeed oo awood leh oo ammaanka xeebaha Soomaaliya waqti xaadirkan sugaya, waxaa suuragal ah in maraakiibtan ay yihiin kuwa kalluumaysi. laakiin muddooyinkii lasoo dhaafay dekadda berbere iyo sidoo kale xeebaha deegaanada Somaliland waxaa lagu arkayey maraakiib dagaal oo la tilmaamay in ay leeyihiin qolyaha Somaliland dhowaan xiriirka diblomaasiyadeed ay la samaysteen ee aqoonsiga markaasi beenaadka ah siiyey ee koofiyad yarta. waxaana markaasi muuqata in maraakiibtan ay noqon karaan kuwaas oo markaasi iyagu markaa gaaf wareegaya ama markaasi isku dayaya in xeebaha ay sheegato maamulka Somaliland ay khayraadka ku jira ay iska daldashaan iyagoo markaasi aan wax ogolaansha ka haysanin. haddaba marka la fiiriyo maraakiibtan taagan xeebaha waqdariye ee dadka deegaanka ay soo warinayaan cabashadana ay ka muujiyeen iyo sidoo kale maraakiib la sheegay inay taagan yihiin dekadda berbera, dhammaan waxaa markaasi la warinayaa in ay yihiin maraakiib ciidan oo hub markaasi u sida dhinaca Somaliland. xogo qaar oo markaasi aynu helayno waxay tilmaamayaan in markabkan taagan waqdariya uu markaasi sugaya markab kale oo taagan dekadda berbera, kaas oo isagu markaasi la sheegay in hub laga dejinayo. marka kaas hubka laga dejiyo oo uu banneeyo goobtaas ayaa la tilmaamayaa in markabkanna uu ku xiran doono si isagana markaasi qalabka uu Somaliland u sida looga dejiyo. xogo sirdoon waxay sheegayaan in Somaliland maalmihii ugu dambeeyey ay soo gaarayeen hub culus oo kala duwan kuwaasoo laga soo dejinayay dekadda berbera, waxaana la warinayaa hubkan qayb badan oo ka mid ah in ay leeyihiin qolyaha Somaliland aqoonsiga siiyey oo ay rabaan inay markaasi ay u adeegsadaan saldhigga ay ka dhisanayaan xeebaha markaasi berbera oo ay doonayaan inay markaasi ka weeraraan dalalka kale ee carbeed ee gobolka ku yaala si markaasi Somalilandna saamaynta dagaalada gobolka bariga dhexe ka soconaya ay iyana markaasi u soo gaaraan. guud ahaan wixii ka soo kordha xiisadan markaasi gobolka Sanaag ka soo cusboonaatay gaar ahaan waqdariye iyo shidan wararkeenna dambe ayaan kula wadaagi doonaa. soo dhowow, muuqaalka like saar, aragtidaada qaybta faallada ku dhiibo sida aad markaasi u aragto xiisadan iyo sidoo kale beesha warsangeli tallaabada markaasi u furan waqti xaadirkan ay qaadi karto.